kadib dagaal saaka hirti waa bari ka dhacay aaga degmada Taleex ee ka tirsan gobolka Sool oo dhexmaray ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ayaa lagu soo qabtay 19 maxbuus oo ay ku jiraan taliyaha aaga Sool, gudoomiyaha maxkamadda, xeer ilaaliyaha iyo gudoomiyaha waxbarashada oo dhamaantoodba ka tirsan kana mid ah maamulka Somaliland, iyadoo ay jiraan 5 dhaawac ah oo hadda lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Garowe sida uu sheegay taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland عمر عبد الله محمد. محابيستان دقالك كتر سنة سراكيشي عيدمدا سوماليلاند iyo askar bale oo saaka waa barigi isku horaba dhexmaray ciidamada Puntland iyo qoladan maamulka la magac baxay maamulka waqooyi galbeed la magac baxay Somaliland ay saaka ku soo qaadeen aagaga tuulada degmada Taleex halkaas oo ciidamada daraawiishtu ay ka soo qabteen waxa kamid ah 17 maxbuus 5 baa dhaawac ah 14 saayniina ku aragtaan hadda waa hor joogan. taliyaha ayaa sheegay inay jiraan 4 gaari oo nooca loo yaqaan saarifta ah ay ku jiraan waxyaabihi ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada daraawiishta Puntland kadib dagaalkii saaka, waxaana uu mid taliyuhu u sheegay magacyada gudoomiyaashii maxkamadda gobolka Sool iyo taliyaashii ay qabteen.